كارل wuxuu dhashay 5 May 1818 wuxuu geeriyooday 14 Maarch 1883 muu jeclayn inuu sharciga barto si uu finta dardaaranka aabihii ayuu jaamacadda Bonn ka bartay sharciga hadduu jeclaa falsafada oo waqtiga iyo aabihii ka hor istaageen inuu barto haddana kama hadhin wuxuu darsay oo akhrinta ku badiyay falsafada qoyskiisu waxay ahaayeen jabdhaxaad wuxuu ku soo kacaamay nolol aan la oran karin waa nolol hodman Marquis waa aqoonyahan saameyn ku leh dhammaan tiirarka ummadeed ee siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo diinta Inchalis waa saaxiibkiisii dhabta ahaa sida Marquis muu ku soo kacaamin nolol adag si qoyska Inchalis waa iska ladnaa baaqana dhammaan looma cimaamadi karo Karl Marx oo saaxiibkiisan baa la qoray mar kale Karl waa cidda leh aragtiyaha ugu muhiimsan ee uu gudbinayo baaqo Karl waa cidda u mudan ee dhaxal la taaban karo uga tagtay dabaqada xoogsata ama muruqmaalka ah wuxuu halgankiisu ahaa in dabaqada jeebweynta ah kuna kibirta dabaqada hoose ee taagta iyo jeebka yar ay tahay in la iska caabiyo oo way istumisaa dabaqadaas wax isbiday waa hadii isbedelka laga dhab ahaado oo dhalanteedka laga baxo gacmaheeda lagu dumiyo baaqan hibeyntiisa oo mudan inaan xuso wuxuu turjumo ka dhigay sidan Soomaaliyeyntan waxaan ku maamuusayaa xoogsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ee la xisbi siyaasadeed oo danahooda u dhaqdhaqaaqa iyo dawlad dhisan oo xaqooda la doonsiyay soo dhicisa kana dhowrta in mar kale lagu gadaroodo waxaan ku furfuranayaa meerisyadii hadraawi warshadaha saboolkiyo wadatada la qaybsaday wiil ay dhashaanahay weerarta hoosiyo waa hel rug sare furan marka la isu kala waco ninka labada waaxood dan yar weheshadaanahay baaqan waa mid si weyn u soo murbaxay kolkii shir la soo agaasimay la isugu yimid London intaas kadib waxaa loo turjumay baaqan af Ingiriisi af Faransiis Jarmal Danish Flemish iyo af Talyaani baaqu waxa uu noo tibaaxaya in intii u horeysay ee qaab burjuwaasile ay ka abqaalantay adoonta rahmani waxay ahayd koox ku hoos noolay dabaqadii dhulgoosi waxayna uga shaqeyn jireen beeraha iyaga oo dhaafsanaya tacabkoodaas meel ay dhabanka dhigaan iyo waxay cunaan waayahoodaas ilaa dura waxa u bedelay xoroobid iyo sadeeraad ah oo loo qoray sida ku cad buuga waxay yeesheen awood waxayna gacanta soo galiyeen saylada suuqa waxa saaciday daafurkii Amerika waxayna ka sii qaadeen isboqorid badan iyo heer ay koota suuq yeesheen gacantana ku dhigeen wax badan oo sixirka suuqa shaqaalaysiinta xaddiga gunnada iyo waxii la mid ah waxay bedeshay markaa oo ciriirisay dabaqadii dhexe iyaga oo markan ah mulkiilayaal warshado oo hanti leh heer ay boqortooyooyin isu qaabeekaysiiyeen baaqu waxa uu noo sheegayaa in arrimahan dhacaya ay taariikh ahaan ku yimaadeen isla isbedeladii taariikheed ee tacab soo saar iyo wax isdoorin dabaqada xoogsata inay dulmiga hoos ahaanshiyaha iyo dhammaan wax kasta oo gaf ku ah habnoolaanshiyahooda ka hoos baxaan oo midoobaan waa mucda baaqan Marquis iyo saaxiibkii si cad uma kala duwin oo kala qeexin labada eray ee la isku qaldo kuwaas oo ah shuuciyada iyo hanti wadaagga farqiga shuuciyada iyo hanti wadaaggu inta badan wuxuu ku kala tagaa wax yar laakiin waxa mideeya ayaa badan tusaale shuuciyada marka la joogo ma jiraan wax la yiraahdo hanti gaar ah dhammaan hantida waa la wada leeyahay qof walbaana wuxuu leeyahay qayb ka mid ah waxa uu u baahan yahay si sharciya dawlad dhexe oo xoog leh oo maamusha dhammaan dhinacyada kala gedisan ee wax soo saarka iyo dhaqaalaha mar kale dawladdaas dhexe waa mid ummadda matasha oo aan cid gaar ah ama kooxda talada haysa ku koobnaan karin taas ayaa astaan u ah waxay siisaa muwaadiniinteeda waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ay ugu mudan yihiin cunto guri daryeel caafimaad iyo waxbarasho si siman taas bedelkeeda marka la joogo hanti wadaagga shakhsiyaadku wali waa ay yeelan karaan hanti laakiin wax soo saarka warshadaha ama habka ugu muhiimsan ee hanti soo saarka waxa iska leh oo maamulaysa dawladda hanti wadaagga ama shuuciga ahi waa mid dimuqraadi ah shacab weynuhuna uu leeyahay aqlabiyadda xilka ay gutaanna waa inay u jirto dantooda una adeegto haddaba su'aal baa jirta isweydiin doontid kolkaad si quman oo degan u akhriso dhiganaha su'aashaas waa mid u dhigan shaqaalaha iyo muruqmaalka Soomaaliyeed xaalad noocee ah ayuu ku sugan yahay
dabaqada shaqaysa markuu ka hadlayo baaqu wuxuu sheegayaa inay jiraan kuwa aan baraarugsanayn fahansanayn halka ay wax ka socdaan oo iska kulaalaya uun quranka ay burjuwaasiyadu la doonayso. markana waxaad soranaysaa buuggan loo hibeeyay shaqaalaweynaha Soomaaliyeed maba aha kuwa ku baraarugsan garowsan qiimaha turjumuhu siiyay iyo xaaladooda. waxay kala cadaaday shakhsiyan intaan baaqan dhuganayay in burjuwaasiyadu tahay mid aan dan guud iyo danayn bulsho aqoon. danaynta bulshadaas oo ka soo bilaamaysa ka u shaqaynaya inay danayaan oo daryeelaan, kaas oo shaqaalaha iyo xamaalka u ah marka la dubto ee dulinimo lagu yeesho ayaa dadqalnimadaasi soo gaaraysa bulshaweyntii. burjuwaasiyadeennu waxay gaadhay heer ay sayladaha dalkeena, sixirada suuqa, bangigii dhexe, quutal daruuriga, xitaa waxbarashadii ay yeeshaan iyo wixii ugu mudnaa oo ah kuraastii bulshada loogu shaqaynayay oo ay ku quudsato ciddii fuusha, iyada oo danaheeda ama waxa ugu yar oo ah cashuurka carar ay ku fushato. ciddii diidda quudkeedana ay u sheegto inaysan hawaysan kursigaas noocu doonaba ha noqdee. xeerka shaqaaluhu inkastuu wax badan tarayo oo haddana uusan baahida xoogsatada daboolahayn, haddana waa mid aan meel mari karin. burjuwaasiyad jeeb iyo wax isbidid ku hortaagan awgeed ayuu u socon laayay. odhahda baaqan ee ah shaqaalaha dunida midooba oo ka dhigan ilaan shuuciyadu dal ma lehe, shaqaalaha Soomaaliyeed oo midooba deegaan ayaa xaal ku yahay ilaan sidaas baa burburin karta dabarada burjuwaasiyadeed. baaqa waxaa ku dhigan in hanti wadaagga iyo shuuciyada dhalanteedka ay ku mashquulaan uun ka saaridda meesha laga saarayo dabaqadaha, iyagoo ku doodaya in la baabi'iyo farqiga miyiga iyo magaalada, qoyska, dheefta gaarka ah iyo gunaynta. laakiin waxay ka tageen oo garan waayeen in sidani lid ku tahay horumarka taariikheed ee dabaqadahan casriga ah kuna jira loolanka adag. Markis wuxuu inoogu baaqayaa in goobaha shaqada laga abqaalo dimuqraadiyadda halkaas laga soo bilaabaya ayaa imanaysa kursiga guud ee dalka. taas hadday xumaato oo laga waayo goobta shaqada, kuwaas diiday dimuqraadiyiinta goobta shaqada ayuunbaa inoo noqon doona madax kale taliyayaal oo si guud inoo uusnoogi doona. hanti wadaaggu wuxuu soo ifbaxay isagoo ka jawaabaya isbedelada dhaqaale bulsho ee bacan, kuwaasoo uu keenay kacaankii warshaduhu, gaar ahaan halgankii shaqaalaha. waayahaas shaqaalo badan ayaa faqri kordhayay, halka mulkiilayaashuna hanti urursi ku jireen. horaantii qarnigii 19aad mufakiriintii hore hanti wadaagga sida Henry de Saint-Simon, Robert Owen iyo Charles waxay soo bandhigeen habab gaar ah oo ay ku rabeen in bulshada la mideeyo iskaashi ahaan, iyadoo laga takhalusayo kootooyinka suuqa ee daruurigii ku xidhan ama tartanada arrimaha loogu jiro. imaanshihii Charles iyo Marcus oo ahaa rag saamayn leh waxay naqdiyeen xaalado badan oo ilaa hanti wadaagga quseeya. dub haddaan u noqono markii ay kulmeen 1844, labada nin ee saaxiibka ahi waxay naqdintaas kadib soo saareen buuggan Communist Manifesto ama baaqa shuuciga. ujeedka weyn ee qoraalkan arrimaha bulshada iyo dhan kasta oo dhaqaale iyo diinba leh taabanaya wuxuu ahaa in kor loo qaado feejignaanta iyo xuquuqaha, mar kale baabiinta dabaqadaha iyo dhammaan dhaqanada jeebweynta ee marorsan. taamistoodu waxay ahayd in la burburiyo dabaqada xoogga, dhaqaalaha iyo lahaanshiyaha ama dhammaan ilaha wax soo saar leh. waxay noo sheegayaan in dhammaan ilaha wax soo saarka iyo awoodda shacabka oo u badan dabaqada xoogsata gacanteeda soo galaan. intaa kadib wadamo badan oo ay ka mid yihiin Koonfurta Ameerika, Asia, Yurubta Bari iyo Afrika ayaa qaatay nidaamkan falsafad siyaasadeed. in yar kadib qarnigii 19aad shuuciyadu waxay gaadhay Russia kadib kacaankii Bolsheviska. xaaladaas kadib Russia waxay noqotay wadankii ugu horeeyay ee fuliya aragtiyihii Marcus, kadibna waxay mabaadidoodii qoran u direen xisbiyadii Yurub ee socialistiga ahaa. kolkii dhiganahan bilaabayay akhrintiisa wixii ugu weynaayaan isweydiinayay bilowgiiba wuxuu ahaa shuuciyadu muhiimad intee leeg bay siisay dabaqada shaqaysa ama xoogsata. xaqiiqdii waxay soo baxday in shuuciyadu tahay xisbiga kaliya si dhammaystiran ugu hiiliya meel cad ka istaaga xuquuqaha iyo asaasaadka shaqaalaha,
iyo inuu yahay mid aan ku koobnayn dal uune si guud oo dunida oo dhan oo uu ujeedkiisa ku aadan shaqaaluhu uu yahay mid waxay la dagaalantaa xoogsatada la yeesho ee gunnaysan oo baaqu ku sheegayo in jeebweyntu gunnadoodu tahay mid xoogsatada ku haynaysa weegaarka gunnada macnaheeduna yahay inaysan yeelan indho aan gunnada ahayn burjuwaasiyiintu waxay ku doodaan in suuqa iyo raasamaalku xor yahay oo bannaan yahay hantidu tahay mid shakhsiyeed oo aysan noqon karin wax meesha laga saari karo ma ogolin bay dhahaan aragtiyaha shuuciyadda oo ah kuwa xorriyadda iyo hantida gaarka ah meesha ka saaraya se shuuciyaddu mowqifkeeda halkaa way cadaysa oo tidhi waa sidaanu rabnayba sida buugga ku dhigan waxay ku doodeen in laga saaro meesha muuqii dabaqadeed ee bulshada oo ay waajib tahayba hantida burjuwaasiyadeed ee aan aragnay waa mid ku timi waxla'aanta inta badan bulshada waaqaca markaad eegto inta jeebka iyo hantida ka kobocday waa 10% bulshada ka mid taasoo ah waxa u weyn ee aysan shuuciyaddu aqbalayn in qofi balaayiin barkado 1 milyanna ay baqtigu u xalaal yahay sida jirta maanta oo aad arkayso burjuwaasiyadda qaaradaha isaga gudubtay oo carre edgeynta u fududeysay in burjuwaasiyad fadhigeedu yahay qaarad kale ay Afrika kugu usnuugto waa ujeedada shuuciyaddu la diriirayso waa uu sii sheegay Karl xaqiiqada horteena taala ee burjuwaasiyadeed xaqiiqdii marka la eego sida uu u darsay ee isugu hawlay hawlahan qiimaha leh oo casrigiisii dunida badankeeda albaabada garaacay waxaa kuu soo baxaysa inuu Karl ahaa indheer garad buuxa oo mid dhalanteed ah iyo mid burjuwaasi ahayba aysan yeelan burjuwaasiyaddu way naaxdaa oo kortaa markaasay heer qaran iyo mid wadan gaadha kolkaasay ku doobidaa qaramada kale iyo dalalka kale waa burjuwaasiyad xadka ka talowday Soomaa haddaba shuuciyadduna intaas bay kala siman tahay si meel kasta ay uga sifayso si kale aan u dhigo sida baaqa ku cad shuuciyaddu dal male waana codka xoogsatada iyo sidaan soo xusnay xisbiga ugu quman dhanka dabaqada xoogsata xaqiiqdii waxaa jira qodobo ciidaas ah oo aanan taaban oo buugu ka hadlay waxaanan uga tegay inaad akhrido oo ila soo eegto ma aha dhigana lagu lugayo sidee waa wax ka maqan oo ay ahayd may dhicine inaad ku qaadato wax ka mid ah taariikh ahaan geedigaagii waxbarasho ama aad maktabadaha Soomaaliyeed ka hesho ma aha wax iska fudud in la iska Soomaaliyeeyo buugkan oo kala waxa qiimo u yeela shaqada la qabanayo wadadaalka iyo mas'uuliyadda la iska saaro taasina waa mid si cad uga muuqata Soomaaliyiinta buuggan waxa ku amaanan turjumaha Cabdicasiis oo xusan had iyo goor ma aha maqalkaygani gorfayn fitriya faatir loogu qaadayo buuggan se waa faalayn aan ku baray idin kula wadaagayo wixii aan ka dheefay iyo inaan idin ka siiyo fikrad waxa uu daaran yahay dhiganahani soo akhriya oo soo falanqeeya waxna cafilan hal akhriyo mahadsanidin